xerada ciidamada qalabka sida Norway ee Jørstad Muren kuna taalo magaalada Lillehammer ayaa ka codsatay shacabka deegaankaasi inay soo sheegaan haddii ay dareemaan dhaqdhaqaaq iyo waxyaabo ay ka shakiyaan kadib markii laga dareemay xeradaasi iyo hareeraheeda dhaqdhaqaaqyo sirdoon oo kusii kordhaya waayadan. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay soo dhammaatay bandhigga weyn ee Locked Shellis ee dhanka internetka iyo isgaarsiinta ku saabsan oo xeradaasi ka dhacay, waana xarunta ugu weyn ee difaaca internetka. Madaxa difaaca internetka sarreeya Gas Halvor Johansen ayaa sheegay in arrintani ay ka dhalatay kadib xaaladda kacsanaanta ee kusii kordhaysa qaaradda Yurub, wuxuuna sheegay inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ka dhacay xerada iyo xeendaabkeeda kuwa oo ku saabsan dhanka sirdoonka ah. Wuxuu intaa ku daray inay ka warhayeen dhaqdhaqaaqyo sirdoon oo firfircoon oo isugu jira dhanka internetka iyo kuwa toos ah kuwa oo ka dhacayay xerada iyo hareeraheeda. Wuxuuna sheegay in ay dhaqdhaqaaqyadani ka shakiyeen taana ay sababtay in ay feejignaan dheeri ah sameeyaan. Arrintan ayaa keentay in ay ciidamada qalabka sida ka dalbadaan dadweynaha ku nool magaalada Lillehammer iyo hareeraheeda in ay la soo wadaagaan dhaqdhaqaaq kasta oo ay ka shakiyaan oo ku saabsan xerada iyo xeendaabkeeda. Halka ay wararka idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.